السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش قيمة قدرنت لميل كستوك سوونتا ونيكلا سعودان تلفزيون عالمي SBTV. داوديال ورك كمان تونسين كترجلني يا ميك مدينة. ciidamada Jubbaland oo gacanta ka dhigeen qarax iyo maleegeen ururka al-shabaab xildhibaanadii in ka badanaayeen oo wasiiro la ka bedelay iyo liiska golaha wasiirada Hirshabeelle madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo aqoonsi ka gadoomi safiirada Masar iyo Indonesia ganacsatada al-shabaab oo sii jirtay canshuuraha oo xabsiga la dhigay ee magaaladaasi Jowhar beesha Mukhtaar Abuuroobow oo diideen lacag inkokoyti dawladda federaalka kana hirti shuruud adag qarax ka dhig magaalada Muqdisho oo jeesidii qasaaro duqa magaalada Muqdisho injineer Yariisow iyo afka furadiiso ka dhawaaqay inay suurtagal naga doonaan goobitaanka ka socda dhulka dalka Soomaaliya banaanbax ka socda magaalada Dhuusamareeb warka caalamkan FBI-da Mareykanka ayaa hirti muwaadiniin Soomaaliyeed Kenya oo linka baaqi inay Soomaaliya ciidan shakala bato intaas ma ahayna qodobada wararka maanta haatan ka dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo ayaa warqadii aqoonsi ka gadoomi danjirayaasha cusub ee dalka Masar iyo Indonesia iyo la magacaabay dalka Soomaaliya danjirayaasha dalka Masar mudane Maxamed Ibrahim oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan u sahanka diri mudane Abdifataax Al-Aziz iyo anka mahad cali dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed usoo dhaweynta diiran ee la hanfidii sidii in adkay lahaayeen wada shaqeynta lamada dal iyo xiriirka iskaashiga ka shacabka walaalaha ayaan madaxweynaha Farmaajo iyo si kale la wadaagay danjiro cusub ee dalka Masar iyo dalka Indonesia usoo ka sheegay in wadamadaas si wanaagsan u wada shaqeey doonaan sidoo kale madaxweynaha iyo danjirayaasha sheegay in si wanaagsan la handhawey doono si wanaagsan oo kulmaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka wararkan idiro magaalada Baydhabo ayaa sheegay in odayaasha beesha ka jeedaan Mukhtaar Roobo Abu Mansuur diideen lacag halmarin ah taasoo aan ka koyti dawladda Soomaaliya lacagtan ayaa sidoo la sheegay in $2 milyan oo dollarka Mareykanka iska jirtay magta dadkii ka dhimaday shaqaaqadii ka dhigay magaalada Baydhabo dadka ka dhaawacmay iyo xaalmarintii qaladaadkii suubiyeen ciidamada dawladda sidoo kale xogta uu helayn iyo lacagtan la ka sheegay in beesha aan bandhigay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo Baydhabo ka wada kulmeen usoo dadaalay kuwada sidii in iska sheen lahayd dawladda iyo beesha Mukhtaar Abu Mansuur soo ka wakiil ay xukuumadda madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Maxamed Cabdiaziz Lafta Gareen sidoo kalena qayb ka ahay dadaalada la kuwada lacagta gudoomiyaha baarlamaanka Mursal oo sidoo kale odayaasha ballanqaadi in Mukhtaar Roobo la hadii doono si kastaba aatee beesha Abu Mukhtaar Roobo ayaa sheegay in ay gacanta ka saareen ballanqaadi gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal wararka ayaa sheegay in beesha cabsi ka qaban in mar kale heshiiyaan dawladda oo xiisadan la damiyo oo la ka baho balantii oo Abu Mukhtaar Roobo la ka dhigi lahay oo gacanta an ka jiro hay'adda nabad sugidda ee NISA ee magaalada Muqdisho ciidanka ammaanka ee magaalada Jowhar ee howlgal 24 saac la dhaafiyo ku suubiyeen magaaladaasi iyo meeha ka hirina ku dhawaad 10 qof ee ganacsatadaas la hirhiri iyo la sheegay in la ka eeday lacag canshuuraad in iyo sii jireen ururka al-shabaab iyadoo amarkaas la kiiron ay biyay gudoomiyaha maamulka Shabeellada Dhexe sidoo kale ciidamada iyo weydiiyooyan ganacsato kale oo bil walba lacag canshuur ahaan iyo siiyaan xarakada al-shabaab cabsi la ka qabaya xilligan wajahada ganacsatada ka dhaqan magaalada Jowhar iyo maamulka Shabeellada Dhexe wali amnishan aan sukarna ganacsatada Soomaaliya iyo inta badan lacag canshuuraad ee siiyaan kooxaha al-shabaab iyo ka cabsadooyan in hadii iyo ambiin dilin jeysad doona dawladda iyo sidoo kale damaanad qaado karna sugitaanka amaansho ciidamada maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka hortageen sidii la sheegay qaraxa ururka al-shabaab iyo maleegin deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in iyo hortag ka suubiyeen dhibaatada shacabka linjeysad lahay iyo lahabi miina iyo geliyeen ceel biyaha agtiyo deegaanka Bliis ee Qooqaani iyo sidoo kale duleedka la ka aragay sidaan shaqeeyeen ciidamada Jubbaland ee qaraxyadaasi madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Siraaji iyo sidoo kale ka dambeyn ka
dhawaaqi iska shaandheynta ee muddo la falanqeeyay isoo suubi haatan mayna sidoo kale madaxweyne waare sheegay in rajaayaan wasiirada aan magacaawi in iyo hakabahan shaqada liin idmidi wasiiro cusub iyo xildhibaano wasiire ayaa la sheegay in la ka dhawaaqi mayna ka dhawaaqay maamulka Hirshabeelle sidoo kale xildhibaanadaas iyo wasiiradaas ayaa la sheegay in inka jirna wax dumar ah oo xil lahaan magacaawi maamulka gobolka Banaadir iyo suubi dib celin ee dawladda hoose xarunta waaxda Oktoobar ee degmada Waaberi si sharci daro ah warqado aan ka suubiyeen shakhsiyaad liin wali goobo ganacsi iyo maanta dib lahaan ka celi danta guud ee si liinka adeego shacabka Soomaaliyeed duqa magaalada Muqdisho ahna gadoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariisow ayaa sheegay in uu marnaba aqbali doono in hantida qaranka qof shakhsi ah iska haysado oo liin suubiyo warqado been abuur ah mayna sidoo kale hasaaray warqad oo ka baabi'iyay sharciyada liin suubi sidii dhulka danta guud taas oo ka qayb ahayn siyaasadda weli ka ilaaliyoy hantida qaranka iyo sidoo kale dulqaad ahna weelada doona si guud liinka faa'iideeyay doona dana gaar ah iyo wararkan waxaan diiroyan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo meel la sheegay in uu halkaas ka socdo banaanbax laan ka horjeeda kufsi la sheegay in ka dhig tuulo hooseeda degmada Guriceel qaar ka mid ah shacabka magaalada Dhuusamareeb iyo ardayda wax ka baraday iskuulada magaaladaasi iyo dhigoyan banaanbax mayna sidoo kale dalbadayna in cadaaladda la horsheeno dadkii ka dambeeyay kufsigaas inkastoo cadeen rasmi oo muujiyas liinkahayn kufsi wadareed ee la sheegay in tuulo hooseeda degmada Guriceel liinkajeysidii gabar yar oo haddana dadka banaanbaxa dhigoyan sheegayaan in iyo aad ku xunyan arintaas maamulka degmada Guriceel iyo laamaha amniga Galgaduud iyo weli si rasmi ah ka hadalna kufsigaasi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Kenya Moses Wetangula ayaa ka baaqi dawladda dalkaasi in ciidamada iyo hakala baxan dalka Soomaaliya Mr Wetangula ayaa haatan ay senatarka ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo sheegay in ciidanka Kenya iyo kaalin weyn ka qaadeen howlgalka la nabadeeyo dalka Soomaaliya mayna sidoo kale intaasi ka daray in Soomaaliya aragto Kenya mid dhul qabsasho ka socod oo liin baahan in la miisaamo qaabka liin wajahoy nabadeynta gobolka sidoo kale senatarka iyo eedeen dushan ka tuuri hay'adaha garsoonka ee Kenya mayna sidoo kale ka tilmaamay in iyo daahiyooyan xukuumadda ka dhanka ee dadka ku eedeeyaan falalka la xiriiran argagixisnimada ee gacanta angeliyoyan ciidamada dalka Kenya oo Soomaaliya seedeen sanada 2011 iyo oo tan iyo xilligaasi ka qayb galayeen dagaalada ka dhanka ee xarakada daawadayaal intaas ma ahayna war wixii una siin ka targalni maanta warkan war lamid intuuna siin gudbi doono meesii lana sidaas nabadgeliyo